ciidii aan naqaanay waan ka baxno ciid casbaan u galayo igala duwantii hore tan waxaan idhi talooniyo halkaad gashay waqtigaana cabsi baa ka jirta xaggan Itoobiya bilaa malaha ninkii inay ilayo madaxabado maadaama ay laba ciidood iyo laba dalo kala ahayd oo markuu war Ibrahim marayay uu mooday inuu killerkii joogo waxa weeye baalika inta u sarfayfay ilaahay khayr miisaanka xasanaadkiisa ugu daro midhihiisina maanta runtii ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galo xafladan aadka u qiimaha badan ee bilicda leh ee sharfan ee lagu karaameynayo hadalka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaanu joognaa maalin ama habeen ramadaana waxaynu karaameynaa quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo dadkii ehelka waha Sheekh Xasan macallin baa ila soo hadlayo shalay fiidkii meelaha salaadii kulkii la aadaamay buu soo garaacay oo tan waxaan idhoon xilligan la isma soo garaaci jirin number mas'uul buu ninka ku soo garaacay waa maxay kamaan qaban dana mar labaad buu igu soo celiyay dabeetana mar saddexaadkii baan saddex jeer ku soo garaacay baan markii afraad aan ku celiyaano kadibna uu numberkana ma iimu saf gareysnayna way warramay wixii ugu xaaladaas jirta haddana qubayl al-maghrib maanta ila soo hadlo siiro waxaan jeclaan lahaa inaad meeshii caynka ahayd nagala soo qayb gasho waxaan doonayaa wax yar inaan taariikhda dib ugu noqdo Sheekh Xasan iyo ninka aan isleegnay baashi ayaa Ilaahay khayr siiyay 2015kii meel maasado khayriyo aan markaan ugu joogay iigu yimid dadna waxay yiraahdeen tuulo la yiraahdo Cimraan oo burco hawdkeeda ayaanu doonaynaa maalinta tuuleeda aniga sawirkan ay sima sheegaya raaliga hada kama xamiinay tuulo noqotay inay maanta way ka sareysaa degmaba waxay u qalantaa wax magac qaali sidoo maalinta markay yimaadeen waxay ku yiraahdeen sheekh waxaanu ka doonaynaa inaad halka nooga dhiso macahd iyo masaajid dabeetana waxaan ku oriniyo malaha tuulooyinkii wixii ugu cuntumi karayo fasal baan maalintaas iyaan filayaa igamiid odayaashii way iga noqdeen haddana dhowr cishay ku soo noqdeen markii dambe deetana waxay noqotay in meeshii wixii aan gacanta ku haynaan u sii deyno oo laba fasal iyo masaajid kooban markay bilaabeen baan idhi meeshaan soo eegno burco oo iguba cusbayd ayaan gaaray aniga laftaydu marka waxaan filayaa markii koobaad markii labaad deetana waxa la yiri ilaa 60 kilomitir miyaan talo khaldanahay ayay hawdka xigta meelaha shantii galabnimo ayaanu wadada ka degnay deetana waanu soconay ciidii aan naqaanay waan ka baxno ciid casbaan u galayo igala duwantii hore deetana waxaan idhi talooniyo halkaad gashay waqtigaana cabsi baa ka jirta xaggan Itoobiya bilaa malaha ninkii inay ilayo madaxabado adoo cabsi baa gashay haddana waan ku dhiiranay habeenkii baan gaarnay tuulo yar oo kooban oo dadkuna habeenkaas shir baa jiray aan filayaa shirkii beesha ay lahayd oo laga meel magaalada ka baxsan shir lagu qabtay laakiin magaaladu cidlo tahay markaan meeshii istaagnay ayaan dhulkan yar oo waxaan u baahanahay koonaha inaan u yar durno dadana rag iyo dumar midna waxa rag iyo dumar iyo caruur baa jooga waxaana laga codsan lagu yiri waa iib haddaad wax doonaysaan iyo walidka iibinaya oo istaagnay ninkii la soo waxaan ku nimo halkan la iibinaya lacag waliba qaali ah maalinta nolosha maalinta waxaan iminka maskaxda dib ugu celiyay wixii maalinta lagu iibinay malaha meesha waxba ku aasnaa aan nagu ogeyn runtii waxaan leeyahay degmada war Cimraan wixii maalinta nagala kulmayna waa idinka sheekayniyo kelmadii noo taalay maantana wax umada ka duwan baa ka soo baxay wuxuuna taasi tusaale u tahay dadka deegaanka joogay iyo inta la midkii dad dunaho tacaawun laho isku duubanoo waxa weeyaan foojigayna yihiin ninka xoolihiisa daajistaa umada uu ka xoolo qurux badan yahay waxaan leeyahay hambaliye idin tahay waananu idin la soo dirsi doonaa insha Allah ta'ala iyo ninkii xoolaha dhaqda xoolaha lagu darsaday tusaalada anaga noo tihiin waxaan runtii ku soo gabagabeynayaa meelo fara badan oo 1 iyo 2 iyo 3 sano ahayn oo kamida gobolada Soomaaliland qaybeeda kala duwan oo madaariska fulinay ayaa maalin walba waxaan isku canaananaa waxa weeyaan talow meesha maxaa uga dhiseen waxaana soo martay meelaha qaar kood oo leeyahay masaajidkii kale naga dumiya hadeydaan waxa weeyaan waxba nagu siinahayn waxaan leeyahay runtii waan ku faraxsanahay ilaahayna idinka aqbalo isku duubnaanta iyo wax wada lahaanshaha iyo danta quraho loo midooba ama danta guud loo midoobay ummadda horumar ku gaadha kelmadda Sheekh Xasan ayaan ku soo hal qabsanay walaalayaal ummadeenu diin bay horumar ku gaadha iyaday ku midoobaysa iyaday ku walaaloobaysa adduunyada magac ku yeelanaysa aakhirna ku badbaadaysa qabiilka iyo qabyaaladda iyo isnaca iyo siyaasadda sheekha ummadda nooga tilmaamayna baasha waxa weeyaan ka jeediyo waxaan la ummaddu
intay khayrka ku mashquulsan tahay bay midho yeelanaysaa siyaasaddaasi waa ta ina kala qoqobtay waa ta ina baabiisay waa ta khayrka inaga reebtay waa ta nin walba walaalkii ku dirtay ilaahay waxaanu ka baryaynaa walaal kuwa danta guud iyo khayrka u midooba inuu naga dhigo iga raalli hadooda ku dheereeyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu